هباق جامع وحاتها حلبانك كلية الصومالية هالكن مقالة بريستول دقن حلكن وحاد هيسي مدة كله وهذا هال سنة dhalinyaradu waad ogtahay inay aad ugu dacdaraysantahay magaalada Bristol dhawaan 20 dhalinyaro isku mar lagu xiray oo ilaa haddana aanan maxkamadooda la soo taagin maxaa guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed ugu tala gashay ama aad ka qabatay arrimahooda sanadka aad joogtay kursiga horta marka ugu horeysa inamadan Soomaaliyeed ee soo qaban qaabiyay barnaamijkan la yiraahdo Bristol Somali Youth Network waxaan doonayaa aad iyo aad inaan ugu mahadnaqo sanad ka hor inta iyagu isu yimaadeen bay iyagu is ururiyeen oo ilaa iyo dadka waaweyn ee taxiga drive gareeyaan business yaasha ayay lacag yar ka qaadeen marka horta inamadaas dhiirinimada madaxtinimada firfircoonnimada ay bulshadeena ku leeyihiin iyo sida fiican ay inoo hogaamiyeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waana mid ilaahay loogu mahadnaqa waana rajo bulshadeena Soomaaliyeed ka soo socota inaynu inamada ayaa hablaha firfircoon aynu leenahay oo inaku dhibaatadeena aynu dabooli karno horta mid ilaahay loogu mahadnaqo magaalada Bristol waliba gaar ahaan anigu xaafadan xildhibaan ka ahay waxa degan dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed oo shaqo la'aan ay haysato oo xabsi gali ay haysato dhibaato fara badan haysta marka horta dhibaatooyinkaas oo dhan xalkoodii anigu maanta kuma hayo laakiin waxaan ku oran karaa waxa weeyaan si fiican baan ula shaqeynayaa dhalinyarada soo qaban qaabiyay barnaamijkan maanta waxaanan aad ula shaqeynayaa aad iyo aad anigu aan uga doodayaa councilka inaan ka soo saxeexo in dhalinyarada Soomaaliyeed barnaamij gaar ah oo ay leeyihiin inay dawladdu aqoonsato oo ay samayso oo funding lagu bixiyo caruurteena waxbarashadooda inay hagaagto in lacag lagu bixiyo caruurteenu fiidka inaanay dariiqyaasha istaagina in loo sameeyo football ay meel ku ciyaaraan filan ay meel ku daawadaan meel iyagu ay isugu yimaadaan waayo ilmihii hadduu Soomaali yahay ilmuhu nation kastaba ha noqdo hadduu dariiqa istaago oo dariiqa lagu iloobo balaaya kala kulmanaysa dariiqa wuxuuna ku baranayaa dhibaato midhan oo dhan waxaanan anigu ka sheegay maanta halkan markan ka hadlayay oo gaar ahaan aan kula taliyay dadka magaalada u madaxda Ingiriiska magaalada u madaxda waxaan kula taliyay dhibaatada Somali community-ga haysata maanta ee waliba dhalinyarada haysta shaqo la'aantu ay ku jirto waxbarasho la'aantu ay ku jirto haddii maanta dawladda Ingiriisku aanay wax ka qaban berito la ka maalin waxay ku keenaysaa dawladda Ingiriiska inay lacag fara badan bixiso iyo dhibaatada maanta taala mid ka weyn inay la kulmaan sanad ka hor markii xilkan lagu doortay waraysi yaan ka qaaday riyooyin fara badan iyo rajooyin baa lahayd maanta maxaa ku hirgalay maxaa isleedahay subhanallah ma sha Allah horta wax fara badan 4 sanadood baan xildhibaan noqonayaa sanadkii iigu horeeyay wuxuu ku buuxaa bisha dambe labadeeda insha Allah waan xasuustaa waraysigii adiga qaaday sanad ka hor waxa ii hagaagay sanadka gudihiisa aan la kulmo dhalinyaro fara badan oo firfircoon oo wax bartay oo intay isu yimaadeen iyagu qaban qaabiyay sheekadan maanta ula soo baxayna inay samaystaan organization magaciisu uu yahay Somali Youth Network anuguna waxaan jeclaysanahay oo iyaguna insha Allah iga marxaati furi doonaan inaan ku dhiirigeliyay inaan ku taageeray waxaan ka caawin karay inaan ka caawiyay marka ma sha Allah haddii sanadkan wax kale aanaynu qaban inaynu la soo baxnay urur dhalinyarada Soomaaliyeed u hadla oo dhalinyarada Soomaaliyeed laba xafladood oo aad u fiican u sameeyay insha Allah mustaqbalkana igala talin doona igala shaqeyn doona inaynu hagaajinayno adkaysiino dhalinyarada waxbarashadooda iyo shaqo la'aantooda waad mahadsantahay walaalahay